tani waa xabadda ugu dulqaadka badan dunida. xabaddan 20 sano ayay ku qaadatay inay ku dhacdo qofkii lagu riday, laakiin waxaad isweydiinaysaa sida ay suurtagal ku noqotay in hal xabad 20 sano ay sugaysay inay ku dhacdo qofkii loo waday. qofkii lagu riday 20 sano kadib ma dishay? bal aan kuu sharxo. waatan qisada xabaddan oo dhammaystiran. sanadii 1883 nin lagu magacaabay Henry Sigland ayaa gabar lagu magacaabay Macy Tignor wuxuu ku qabay magaalo ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Henry iyo xaaskiisa muran iyo dagaal ayaa soo kala dhex galay, taas oo markii dambe gabadhii ku qasbay in ay sameyso arrintan oo ah gabadhii daawooyin halis badan bay soo iibsatay kadibna way isticmaashay wayna geeriyootay. gabadhii markii ay geeriyootay kadib walaalkeed ayaa maqlay in walaashiis ay isdishay, wuxuuna yiri geerida walaashay waxa ka dambeeya saygeeda, wuxuuna soo qaatay qori si uu u dilo Henry Sigland. gabadhii walaalkeed wuu soo baxay, wuxuuna soo aaday beer uu lahaa Henry uuna ku sugnaa. qorigii ayuuna la soo baxay isaga oo aanan waxba weydiinin Henry, kadibna wuxuu ku riday ninkii qabay walaashiis ee Henry. laakiin Henry waxba ma gaarin, xabaddiina way sartay. kadibna waxay dhex gashay geedkan ku yaalay beertiisa. ninkii wuu iska tegay isagoo u maleeya in uu dilay Henry Sigland, laakiin Henry nolol maalmeedkiisa caadiga ahaa buu iska watay, beertiisa ayuuna iska falan jiray. intaasi kadib maalin maalmaha ka mid ah 20 sano kadib, Henry Sigland iyo wiil uu dhalay waxay go'aansadeen inay gooyaan geedka beertooda ku yaalay. xabaddiina weli ay ku jirto. misaar iyo qalabka loogu talagalay in lagu jaro geedaha ayay soo qaateen, kadibna geedkii ayay ka shaqo bilaabeen. sida ay u jarayeen geedka way ku daaleen, wayna ku guuldareysteen inay jaraan. waxayna go'aansadeen ama la yimaadeen qorshe kale oo ah in dab ay qabasiiyaan geedka si fudud uu u kala jabo una gubmo. dab ayayna markii dambe qabasiiyeen, wayna ka fogaadeen geedkii si uusan dhibaato u gaarsiinin labadooda. laakiin xabaddii 20 sano ka hor la riday ayaa 20 sano kadib gaartay bartilmaameedkii loo rabay, dhib badanna gaarsiisay qofkii lagu riday sanado badan ka hor oo ah Henry Sigland. geedka sida uu u holcayay, xabaddii geedka ayay ka soo baxday iyadoo si xooli ah ku socota, maadaama kalkii hore iyadoo aysan qarxin geedka keliyana ay gashay. kadibna waxay ku dhacday Henry Sigland oo taagnaa meel aanan ka fogeyn geedka. ugu dambeyntiina way dishay. Henry Sigland 20 sano kadib geerida saaxiibtiis ayuu isaguna geeriyooday, waxaana salfatay oo dishay xabad uu ku riday gabadhii uu qabay walaalkeed 20 sano ka hor, balse 20 sano kadib dishay isaga. dhacdadan waa dhacdada ugu caansan gudaha dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Henry Grove oo ku taala gobolka Texas ee isla Mareykanka. Sigland iyo Tignor oo ahaa lamaane waxay noqdeen lamaanaha kaliya ee laga diiwaangeliyay dhacdadan la yaabka leh. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar si uu asxaab fara badan ugu gaaro, siina share garay, aragtidaadana ka dhiibo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. tan iyo muuqaalkeena xiga imaaninta berri waxaa idiin rajayn caafimaad, bashbash iyo baraare. waxaan ahay Juula Shaakir. amaana Allah. fadlan haddii aadan subscribe saarin channelkeena ama aadan follow soo dhihin barteena TikTok-ga, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto kana mid noqotid dadkana gaarsiiya meesha aan doonayno.